بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر نوادا channel كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هداتك عصبتهي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفرو سي أي برامجتو هدبا أي كوسو غاران إن شاء الله تعالى ما أنت وحنو كهل دونا أعراض يا علامة أولي هي أما أو كنسدو سحر كلو يقانو سحر المدفون سحر المدفون في القبر سحر كلو قريي أما لغو آسي قبورته وأنا من أخضر أنواع وسحردو أي سميان ابن آدم كأي سميان ومن أخضر أسحار ابن آدم كل بمتنور الشيسة وأنا سحر كأي علماء يقانان السحر الأموات سحر كدم الشبه هدف كيسوا إن يقفك كدلان أو كدنت والعياذ بالله لكيس إن شاء الله تعالى إلهي باكوي الله ساحر كأبوري سحر كنا أبوري قدري أيا وحول بكوي إن شاء الله تعالى وحلو باهي هي إن لا دغالمو سحرده iyo sixirkaba in la dagaalamo mahma sixirku dhibaatadiisu heerkay leegtahay inaadan quusan fi xayaatika inaad halgam kula jirtid ku jihaadid sixirkaas wal ciyaadu billah waxaan halkan ku soo bandhigayaa bacd al-acraad uu sixirkaas yeelanayo calaamada koobaad ee uu qofku yeelanayo waxa weeyaan ikhtinaaq athnaa an-nawm qofku marka uu hurdo oo uu hurdada bartanka kaga jiro in la ciijiyo ikhtinaaq wax inay dhuunta qabanaya ayuu dareemaya sidii wax inay dhuunta ku dhagan yihiin sidii inay wax ku habsadeen oo calaamada tan weynakii hore uga soo sheekeynay sideed banaanba suxaradu waxay soo adeegsadaan masaljaan jimanba u wakiil ah u khaadim ah waxa sixirkan wadwadayaana waa jin jinkaas ayaa qofku u iimaanay ikhtinaaq buu ku sameeynaya ciijin buu ku sameeynaya wax loo yaqaan qofku in uu madaxiisa ka dareemo madax xanuun aad u daran sudaac aan xad lahayn alam madax xanuun oo kaliya ma ahan waa alam xanuun iyo madaxu inuu isgaraacayo iyo haddii madaxiisa qofka saa loo taabto qofka markaad cilaajinaysid haddaan madaxiisa وقيلنايا سيدي كأنه نبر بوغو iyo maaragtay nabar caabuqay oo kale sidoo qofku u ilaalinayo oo aan jeclaan in laga taabto ama meel hadda la qalay oo kale hada taabatid alam wajac bidareemaya qofkaas waa calaamada labaad calaamada saddexaad ru'yatul maqabir wal amwat bikathra ikhwani calaamada tan dadku aad bay isoo weydiiyaa qofku in uu ku riyoodo dad dhintay kathratul maqabir inuu qofku ku riyoodo qabuuro mar walba isagoo qabuur taagan qabuur u sii socda qabuur la tusayo iyo dad dhintay aabihii oo dhintay walaashi oo dhintay hebel oo uu dhintay sixirkaasi aad buu dadkeena hadda ugu batay riyadaasi dadkeena xoog bay u haysataa waana calaamad ku tusinaya dadkaas sixirkii loo cuqdeeyay ee loo xiray in qabri lagu dhex aasay oo sixirkaas la qariyay subxaan allah calaamada afraad baynu maraynay baan filayaa qofku wuxuu yeelanayaa يرى في نومه أنه يضير من مكان إلى مكان آخر qofku wuxuu ku riyoonayaa isagoo oo meeshii uu joogay laga qaadayo waxba ka duulinaya ama isagaaba duulaya meel kale ayuuna tagaya meeshii ba hal mar laga dhufanaya ama isaga iska qaadaya ama waa laga qaadaya meel kale ayuu u duulaya riyadaasina haday kugu soo noqnoqoto halisteeda leedahay waana calaamadaha sixirka la aasay
علامة أفراد قفك وحيالنا يا الشعور بالألم أو تنميل في أحد شقيه الأيمن أو الأيسر بطول جسده. أما الدين عبده أما الدين عمذك أيو قفك وحكيالنا يا حنون دين عاصم بالغ بودية من هلكا كسب بلو إلى إشاس سيدا شلالكي عمل وكله بالضول دير أهان أيو قفكي حنون بمر والبدريمية أما مركو رقيدة دقيسانية ها أهاتو أما حلية وهردة كسوكها ها أهاتو أما حلية قفكو وقلمدي إيو اجتماعي وسمين يبها أهاتو يدون وعلامات وقفكو يسكو أركيو. الخوف الشديد غير المبرر ويخشى سماع خبر الموت كما يخشى من تشيع. قفكم مر والبا إنو كعب صوضه إن مر والبا مقلو إن قف دنتي لما مقشين كرايو هبل با دنتي هبلايا دمتي قفكم مر والبا جيربو كعب سنية قفكم مر والبا دمشا أيو كعب سنية qofkaasi maalinta loo soo sheego hebel baa dhintay si xun xaalad adag buu galayaa maba jecelaba talabaad baqdin baaba wuxuu ka qaba armo hebel dhinta geerida hebel armaad maqashaa walaasha geerideeda armaad maqashaa hooyada geerideeda armaad maqashaa qofku wuxuu buu istusayaa mar walba wuxuu leeyahay geeri inuu ka cabsado xataa war aan jirin oo markaa aanan meeshii oo limba inuu isiraahdo warkani armo adiga ku khuseeyaa أما wax soo socdo mustaqbalaba uu ka cabsado subhanallah. qofku sidoo kale waxyaalaha uu aadka u diidayo ee uu aadka u nacbaysanayo waxa kamida janaa'ista janaasada ma xaadiri karayo salaada masaajidka isagoo jooga hadii la yiraahdo janaasaha lagu tukado kabiisu qaadanaya meesha uu ka sii deynaya uu cararaya rasuulkuna kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inuu qofkaasi qiraad qaadanayo يعني قف كاسي وأجر كيس لا عدد ولا حساب إذن وحويان بوردن وأجر قف كاسي إنه هلايو إذن قف كاسي جناسة دي ونعبيها أما جناسة لسي وضا ما أركي كرايا سيدوك الآد بوق عبصانيا على مدى وقفك يالنا يا وحويان صداع في مؤخرة الرأس حق آدم بإقاداتك إن وقفك ومدحنون كدريم هلكي مدحنون كهلكنو كدريم لها ayaa isaga mar walba halka dambe ayaa qofkii xanuun kaga dhalanaya aw fil jabhati ma'a al-aynayn ama halkan hore oo indhuhuna ay la socdaan wajahadan hore ayuu sudaac ka qabsanaya madax xanuunku laakiin indhihi baa la socdo oo indhihiina xanuun buu ka dareemaya ilaa intaas ay qabsanaysa sudaacaasina waa calaamado ku tusinaya sixir qofkaasi uu sixran yahay sixirkaasina la aasay دائما قفك حنوسا السحر كان مدفون كلو سميه يشم المريض غالبا رائحة كريهة قفك السحر المدفون كالسحر كيسميه لوغو آسي وحيالها أقول بدن ويالنا يوحويا وعلامة أرت إنه قفك سمر والبيرة هذا وحبا إيسو أريا وحبا إيسو بنفيا وحبا اندريميا قفك لفدي قريقيسي سوليقي حمامكي meeshu joogaba urba isaga u muuqata dadkii kale aanan u muuqan subhanallah qofku wuxuu yeelanayaa cirqu ahad shaqayhi duna al-akhar in uu dhinac dhidid yeesho for example dhinacana dhididaysa laakiin dhinaci kale dhidid madaxa dhinacana dhididaysa dhinaci kale dhidid gacantana dhididaysa gacantana dhidid mayso meel jirkiisa kamid ah baa dhididaya dhididka halkaas ku qabsanaya ama calooshu ka qabsanaya bal adigu fiirso qof bina aadan oo jirkiisa qaybna dhididaysa qaybta kalena aysan dhidideen qofku calaamadaas ayuu yadana yeelanaya calaamadaha uu yeelanaya waxa kamid ah yakrahu aklul samak in uu cuno kalluunka qofka loogu taageli maayo kalluun oo dhan uu ka soo horjeesanaya waqad yata'adhi limujarrad maraka qaar waxa dhibaysa يشم رائحته كلونك أرتيس حتى دبسا بعض الأحيان وقد يتقي وحجاريا إن ومتغو كلون لما تسكريو كلون اسم أركي كريا كلون ميل لغو إيبين هيو يعد عنا سبب لما سو أكفر سنكريو والعياذ بالله هل كان حكاية كدوغان وحي تحي سحرادو انت بدن وحيو أديك سدان سحر كأي آسيان مدح كلونك
lidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku beeray kalluunka biyaha ayuu ku beeray. waxaa laga yaabaa biyuhu waa shayga keliya ee haddii wax lagu dhex rido waxaasi ay milmayaan. bal u fiirso, adigaaga bini aadamka biyo kuma dhex jiri karta. haddaad biyo ku dhex jirtid waad milmaysaa. badda haddii aad tidhaahdid 2 sanaan ku jiraya 1 sanaan ku jiraya macquul ma noqonayso, jirkaaga dhan waa googa'aya. laakiin kalluunku awood wuxuu leeyahay uusan dhammaanaynin. waagii hore Afrika Soomaaliya la joogi jiray, adduunku hadda waa adduun nadiif oo dariiqada uskaga waxba ku arki mayside. waaga waxa cajiib ah, madax kalluun marka qaar meel baad ku arkaysaa wado kaanno madaxa kalluun in la cunay dhowr sano ka hor. wax loo yaqaano subxaanallah, yani waxyaalaha aadka loo arki jiray waa madaxii oo sidiisa u qalalan ama lafyaradiisa dhexda oo meel iska taala. marka waxyaalaha aan dhammaan bay ku jiraan. marka kalluunka sababtaas qofkaas kalluun in loogu rakibay madaxiisa ayay u badan tahay, oo madaxa kalluunka ayaa sixirka lagu dhexridaa ka bacdi markaas la aasaya. marka sixirkaasi hore suxaradu inta badan waa adeegsataa wal-ciyaadu billah. qofkaas calaamadaha dabiiciga uu yeelanaya sidoo kale waxaa ka mid ah kathratu nisyaan, ilowsho fara badan oo xadii dadka sixirka qaba oo dhan calaamada way ka wada sameeyeen kathratu nisyaan, qofku inuu ilowsho fara badan leeyahay. kathratu ru'yati al-amaakin al-kharabah, amaakin kharaabsan, walmahjuura iyo meelo laga guuray. qofku inuu ku riyoodo meelo kharaabsan iyo meelo laga guuray, taasina waa calaamad iyaduna ku tusinayso. qofku wuxuu yeelanayaa diiqu sadr, laab ciriiriya, naqaska ku degdegaya oo intaasaa culays baa ka fuuraya. markaasuu qofki neeftii baaba dhibaysaba biduun sabab. dhakhtarka hadduu tagana wuxuu leeyahay oksijiintaadu waa 100%. subxaan allah. qofkaasi wuxuu jeclaanayaa inuu meel kaliya iska joogo mar walba, dadka uu ka dhex baxo oo dadka ka casloodo. qofkaas calaamado uu yeelanaya waxaa ka mid ah alamun fi dhahri walkataf, inuu qofku xanuun yeesho dhabarka, xanuun dhabar oo lafaha dhabarku ay xanuunaan. walkatafi sidoo kale garbaha inay marka iyadana xanuun ka dareemo. wax weeyaan calaamadahaas waxay ku tusinayaan sixirka madfuunka ah qofka la dho. laba arrimood baa lagu cilaajiyaa sixirka. marar badan calaamadaha ayaan aada u sheegaa, oo sababtan calaamadaha usoo bandhigo waxa weeyaan sixirku sidaad moodeen ma aha. sixirku hal arrin oo laguu sheegay lagagama daawoobo. laabudda qofku inuu cilaajaad iyo istaaweyn uu galo. sababahaasaa kalifta inaanan cilaajaadkiisa cilaajaadka hore aan usoo bandhigay mooyaane arrintaas sameeyay sidaa sameeyay sida talooyin guud baan idin siinayaa marka. laakiin aasaas uu yahay qofku marka hore inuu isdaaweeyo. sixirka waxyaalaha lagu soo afjaro waxaa ka mid ah adducaa ila allah, qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala in badan baryo. waa calaamad muhima, waa arrin muhima oo aan kula dardaarmayo walaalaha sixirka la dhibaataysa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay aad buu baryay, dacwatullah dacwatullah dacwatullah, ilaahay baryadiisu ku celceliyey ilaa uu markii dambe ilaahay uu Caaisha uga sheekeynayo. rasuulka Caaisha ayuu uga sheekeynaya, wuxuu leeyahay rasuulkii ilaahay baan baryay buu yiri, ilaahay baan baryay ilaa uu markii dambe iga aqbalay ducadii. 2 malag baa la ii soo diray, 2 malag baa quraanka igu akhriyay. marka dadku ducada way ku yartahay inay ducaystaan, qofka masxuurka ay aad buu yarta. marar badan xataa ducada iyo salaatul leylka, qiyaamul leylka, xilliyada ilaahay samaa oo dunya u soo daga ayaa culays laga saaraa. lidaalika marka ducada aad u badsada insha Allah taala. arrintaasi waa muhim. qofku dabcan inuu ilaahay u laabto oo dhinaca ilaahay u cararana arrin muhiima weeya mar walba oo dhibaato qofku la soo gudboonaato. arinta labaad ee aan idinkula talinaya waxa weeyaan qofku ruqyadani ma aha mid wadaad meel loogu safrayo. la dadka qaar baa xulay Kenya u socdaa, Soomaaliya u socdaa, ruqyaan rabaa inay soo saaro. ruqyadii waan soo duubnay, YouTube-yadii baan soo gelin. ikhwaani fillah 3 saac 4 saac 5 saac 6 saac 7 saac baa la rabaa inaad dhageysatid ruqyada. 6 saac 7 saac baa la rabaa oo xiriir ah inaad dhageysataa la rabaa oo ku celceshato ruqyada, ku celceshato oo muddo dheer aad wadid. taasina waa muhim. marka qofku intuu meel u safro inuu yiraahdo 4 cishaan soo quraan saaraya, taasi macquul ma aha. laakiin waxa la rabaa qofku gurigiisa inuu isku quraan saaro. labada arrimood waa muhim. qofku inuu isquraan saaro iyo inuu iscilaajiyo.
labadaas hadduu qofku gurigiisa ku dhex sameeya insha allah sixirkani waa furfurmanaya si nihaa'iya oo kama dambaysa ayuu furfuranaya insha allahu tacaala biidni illaahi almawla idan waxa loo yaqaano insha allahu tacaala calaamadahaas waa muhim qofku inuu ilaahay u laabto toobada badiyo salaada badiyo adkaarta badiyo tasbiixda badiyo subax markuu soo tooso iscilaajiyo oo mar walba isdaaweeyo oo uusan agtiisa ka waayin cilaajaadka lagu daaweeyo sixirka waxyaalaha muhiimka qofku inuu timirta cajwada badsado iyaduna aad bay muhiim u tahay arrintaasina waa muhiim insha allah biidni illaahi almawla wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed wajazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo insha allahu tacaala